waxaan rabay dhammaantiin inaad wejigayga aragtaan inaan faraxsanahay sidii aan ballan qaaday maalinkii aan ka soo degay gaalkacyo kursiga insha allahu tacaala waa tartan waa calaf qofkii ilaahay u calfo ayaana muxuu ahaa ku fariisan doona adeerkay waa u hambaliyeeyey mar kalena waa u hambaliyeynayaa insha allahu tacaala waana la shaqayn doonaa hambaliyadaas macnaheedu maaha in wax kasta ahi sida ay u dhaceen ay sax ahayd ama aan ku qanacsanayn laakiin waxay ahayd talada ugu fiicnayd oo khusay kartay ama ku wajahnaan kartay dadka kursigaani uu matalayo haddii wax khaldameen cidda khaladay ma aha dadka kursiga uu matalayo haddii ay wax khaldameen ma aha cidda wax khaladay dadka tartamaya oo qof kasta ahi muxuu ahaa sida uu u arko uu wax ku raadin karo ama uu muxuu ahaa intii yani uu arko inuu ku guulaysan karo uu ku dadaalo sidaas daraaddeed waxay mudan yihiin dadkaasi in laga shaqeeyo midnimadooda waxay mudan yihiin in laga shaqeeyo wadajirkooda waxay mudan yihiin in laga shaqeeyo horumarkooda ma mudna in loo ciqaabo waxaanay iyagu gelin ama iyagoo aanay ka shaqaynin marka sidaas ayaan u go'aansanay runtii muxuu ahaa anigoo dhammaantiin idin matalaya oo afkiina ku hadlaya maadaama aan shaqada wada lahayn in aan aqbalno kuna shaqayno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo dhalinyarada iyo haweenka gaar ahaan dadka kursigan uu ka soo jeeday ee sida gaarka ah aniga ila shaqaynayay ee iga aqbalay muxuu ahaa aragtidaas aan soo jeediyey waxaan kale u mahad celinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan joogta ee meelaha kala duwan ka kala timid waqooyiga gaalkacyo iyo koonfurta gaalkacyo iyo cadaado iyo dhuusamareeb iyo muqdisho iyo meelaha kale ka yimid aad iyo aad ayaad idinkuna u mahadsantihiin walaalayaal garab istaaggeena waxaan rabaa inaan idiin sheego siyaasaddu kama bilaabato xildhibaan kumana dhammaato xildhibaan wax ka weyn ayaana hor yaalla waxaan u baahannahay inaan isku duubnaano inaan wada shaqayno inaan ka wada shaqayno waxa Soomaaliya u wanaagsan xildhibaanadu markay soo ururaan waxay tagi doonaan muqdisho insha Allah waxaana laga sugayaa in ay doortaan madaxweyne idin adeega qalbigiina ka tarjuma dalka iyo dadka Soomaaliyeedna mustaqbal wanaagsan u horseeda insha Allah tacaala natiijada muhiimka ah waa taas shakhsiyan aniga waqti badan ayaan u soo shaqeeyay dawladda Soomaaliyeed darajooyin kala duwan haddana insha Allah tacaala waa u sii shaqeey doonaa meel ay shaqadaydu ku xiran tahay ama ay ku go'an tahayna ma jirto dadka shaqada dusha ka bilaabay ma ihi muxuu ahaa xirfad ayaan ku bilaabay darajooyin kala duwan ayaan maray waxaan rabaa marka inaan insha Allah tacaala idin xaqiijiyo inaan sii wada shaqeyno galmudug inaan waxa u wanaagsan mustaqbalkeeda ka wada shaqeyno wixii aan u qalmin ee aan munaasib u ahayna aan kala dagaalano oo aan iska kaashano qaranka Soomaaliyeed inaan wixii u wanaagsan ka wada shaqeyno wixii aan munaasib ahayna aan kala dagaalano aan u midowno marka tartanka kuraastu socoto waa badan tahay muxuu ahaa isriixriixa iyo waxa la xiriira waa wax wanaagsan xumaan ma aha waa wanaag marka dhammaantiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin habeenadii halkan aan muxuu ahaa joogay waxaa runtii farxad ii ah in aan bartay dhalinyaro aad u badan oo aqoon-yahan ah oo meelo kala duwan ka kala yimid oo wiilal iyo gabdho ah oo isku dhex jira insha Allah tacaala ma noqon doono qof xilliga uu kursi raadiska yahay kaliya yimaada gaalkacyaan kusoo noqon doonaa dhuusamareeb baan iman doonaa magaalooyinka kale oo ka timaadeen baan tegi doonaa waa iskaashanaynaa fikradeenna iyo xooggeena iyo aragtideenna ayaan midaynaynaa insha Allah tacaala intaa ka sokow waxaan rabaa inaan idiin sheego baarlamaanka Soomaaliyeed sababtan u raadinaya waxay ahayd aragti baan ka lahaa aragtida aan ka lahaa kama tanaasulin waxaan aaminsanahay weli inaan haysto wadiiqooyin iyo fursado aan aragtidaas ku socodsiin karo waa iga go'an tahay aragtidaasi inay shaqayso insha Allah tacaala saaxiibo badan oo ila aragti ah ayaa fadhiya baarlamaanka
oo aan ku faraxsanahay kuwa kale oo sidaas oo kaleeta ahna waa rajaynayaa in ay yimaadaan dad badan oo ay la tahay in ka maqnaanshahayga baarlamaanka uu baajin doono aragtida aan baarlamaanka ka lahaana waxaan leeyahay waad riyoonaysaan إن شاء الله تعالى أركتها سوي فلي دونتا مد سومالي كفر حسايي نقد دونتا أنيجا إيه صاحب هذا كليتو هل كان فردية محو أها سامين تكله سياسة الصوماليات يدت كبرلمان كوجرة أركتدو دو مقلل دونتو ويغينا دونتا وين الشقي دونتا وحا إن شاء الله تعالى ونكسن دتك الصوماليات أن رجيني إننا وإيمان دونان waxa u xun dadka Soomaaliyeed aan la dagaalamayna way dhamaan doonaan insha Allah taala marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee baarlamaanka soo galay iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee baarlamaanka soo galay muxuu ahaa qaar badan oo kamid ah aan iska warqabno ee fikrad wadaaga iyo aragti wadaaga aan nahay waa ku filan yihiin shaqada waxa kale oo ogaataan siyaabaha loo nooleeyo aragtiyuhuna waa badan yihiin siyaabaha loo fuliyaahina waa badan yihiin wax badan oo maanta Soomaaliya u wanaagsan waxa qabtay dad aan ka tirsanayn baarlamaanka oo baarlamaanka banaankiisa ka qabtay khataro badan oo Soomaaliya laga badbaadiyay waxa ka badbaadiyay dad aan baarlamaanka ka tirsanayn ama aan ku dhex jirin sidaas daraadeed qofka ay la tahay hadii hebel kursiga fariisto in uu ay u sahlanaanayso inuu wuxun sameeyo hadii hebel ka maqan yahana ay muxuu ahaa yani ka saarayso meesha in wax wanaagsan oo la qaban lahaa aan la qabanin taasi tu sax ah ma aha tu shaqay doontana ma aha insha Allah taala dadka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul dawladnimada Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar dadka reer Galmudug waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar waxaan u rajaynayaa isku duubni iyo midnimo waxaan u rajaynayaa in ay ku noolaadaan wax u qalma inay ku hoos noolaadaan insha Allah taala waanay insha Allah taala imaan doontaa marka dhamaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idin ka codsanayaa sida aan isugu xiranahay inaan isugu xirnaano sida aan u midaysanahay inaan u midaysnaano aragtideena inay sidaas u jirto moralkeena iyo aragtideena marka kuraasto ay dhamaadaan dhamaanteen aan Muqdisho u jeedino maxaan Muqdisho ugu jeedinaynaa mustaqbalkeena ayaa yaala mustaqbalkeena yeenan marti ka noqonin aan ka shaqeyno in wixii aan noo wanaagsanayn aan ka hortagno aan ka shaqeyno in wixii noo wanaagsan ay yimaadaan cod baad leedihiin saameyn baad leedihiin xildhibaanada Soomaaliyeed ee soo baxay dadka Soomaaliyeed ay matalaan ee meeshaas iman doona waxay ka kooban yihiin mid aad hooyo u tihiin mid aad walaal u tihiin mid aad xaas u tihiin mid aad saaxiib u tihiin mid aad aabbo u tihiin mid aad abti adeer u tihiin sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed waxa ka guuxaya waa inay ka soo dhex baxaan baarlamaanka Soomaaliyeed insha Allah taala oo idinku aad ka mid tihiin marka qofna yoonan hagranin inta uu qaban karo ma yara inta aad qaban karto waa ogtihiin maantay baraha bulshada isticmaashaan saameynta aad leedihiin waa la socotaan qof kasto idin kamida dadka siyaasiyiintii way ka kambeyn gareeyaan qof kasta wuxuu jecel yahay isaga in wax loogu qoro macnaheedu waxay tahay saameyn ayaad leedahay saameyn baad leedahay marka saameyntaada oo mid hebel lagu daray ayaa samaysa mustaqbalka Soomaaliya taasa hoggaanka aan rabnaa ka iman kara taasa waxa xun aan rabno iyo dhaqamada xun aan rabno inaan zuulina aan ku zuulin karnaa waxa wanaagsan aan raadinaynana sidaas ku keeni karnaa marka idinka iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay awood ayaan leenahay aan waxa xun ku diidno waxa wanaagsan ku dooranno caqabad kooban oo qof loo dhigayna ma hor istaagi karto inta kaleeto oo ka gudubtay oo ka badbaaday ayaa sii waday sirriyadaas iyo natiijadaas wanaagsan inay ka dhabeeyaan marka waxaan u jeedaa waxay tahay dareenkeena iyona ku ekaanin xildhibaanka reerkaaga marka la doorto laakiin ka daba tag xildhibaanka ogow waxa uu ka shaqeynayo hubi inuu dareenkaagu gaaray oo fariintaada ay gaartay isku day inaad aragti yeelatid oo aad u sheegtid oo aad maaragtay dhihi karto waxaasina waa xun yihiin waxaasina waa wanaagsan yihiin marka walaalahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waa idin mahad celinayaa dhammaantiin waa idin xusuusan doonaa
إن شاء الله تعالى برشاد يود جوجي إنه أنت كم كان دونه وحن رجينا دمان تنا نجوا فرحسن إن هل كان كتجنو إن شاء الله تعالى مدح وأنفرني هاي نمحرة قلبي وأنفرني هاي نمحرة محوها وقت جاي مستقبل كوانا جوه الرياض دمانتين عن إسكاشنو مركلة يمر لباد يمر صدحات بآديات أيادو ما هتسنتين دمانتين وكعذر دارنا ناوي عن مناسبة هين قفكي ما ركتي وقت مناسبة أي هيدنا شاكيسن أنا شاكيسنن قفكي سوق جاري واي قفكي حرير كي وكوح ماذي قفكي هذا الكي وكوح ماذي قفكي فعل كي وكوح ماذي قفك استوحن لي هاي إقرها لي هذا ولا ليال السامحة وحان مناسبة هين دمانتين أديات بوما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.